بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مقعد وحويا عبد الغني محمود الفني كسر دوادا كولج كينا يعني كسر دوادا كنال كينا فني كولج إن كاسوت كبرنتونتو سبلاش اللغة الإنجليزية كلية واحد كحرن تاي أديك كرتدادا يصير استماع يوتيوب كا إن كلية واحد كحرن تاي يوتيوب صوت كشو فيديو دعوته intaas kaliya ka haysanad barato luqadda Ingiriiska halkan waxaan soo gelinaa maalin kasta kanaalkeena waxaan soo gelinaa fiidiyogaas ku saabsan luqadda Ingiriiska anaga oo ka bilownay xagga hoosta ka bilownay korna ugu doonay insha Allah hadaba shuruudaha ardayga looga baahan yahay waxaa kamid ah kow inuu subscribe saaro kanaalka si uu la socdo fiidiyo kasta ama cashir kasta oo soo galino laba waxa weeye inaad si joogto ah u daawato cashirada si uu kugu dhicin si uu isfahankaagu soo ku xirmo saddex waxa weeye inaad la wadaagto saaxiibkaaga daneynaya inuu barto luqadda Ingiriiska si bilaash ah una share garaysid lambar afar waxa weeye inaad wixii aad fahmi weydo aad la soo xiriirisid ama comment ku bixinaya wixii adiga aad fahmi weydo ama si toos ah la soo xiriiro waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaanada han ku qornay qaybta description-ka fiidiyoga waad mahadsantihiin cashirkeena maanta insha Allah waxa uu noqon doonaa grammar inta badan waxaan awood saari doonaa grammarka waayo waxa la yiri luqad bila grammar waa gaari bila taayir markaas insha Allah waxaan xoog saari doonaa grammarka maanta waxaan dhigan doonaa cashirkeena maanta waxa weeye part of speech waa qaybaha hadalka haddaan Soomaaliyan ku sheegno on si faahfaahino waxay noqonaysaa hadalka aan ku hadlayno qaybaha uu qaybsan yahay baan qeexaynaa maanta insha Allah markaas part of speech halkan waxaa noogu qoran su'aal ah what is the part of speech waa maxay part of speech the part of speech baakan leeyahay the part of speech qaybaha hadalku indicates waxay ku tusayaan how the word sida ay kelmadda ku jirta sentence-kaagu function ay u shaqeyso in meaning macne ahaan as well as grammatical within the sentence iyadoo ku soo gudbinaysa grammatical ahaan adiga u eegay grammatical ahaan in sentence-kaaga jumladaada aad ku hadlayso dhexdeeda han ku celiyo si guud ahaan u sharaxo part of speech-ku muxuu yahay part of speech-ku waxa weeyaan qaybaha hadalka weeye the part of speech indicates how word functioning in meaning as well as grammatically within the sentence part of speech qaybaha hadalku indicates waxay ku tusayaan how the word sida ay kelmaddu functioning u shaqeyso in meaning as well as grammatically within the sentence adoo grammatical ahaan u eegaya maxay haydaanay sentence-ka gudihiisa there are 9 parts of speech waxa jira 9 qaybood oo ka kooban yahay hadalku halkan waxa noo yaala inta madowga dhexda bartamaha waa part of speech-ki kuwani ku wareegsanna waxa weeyaan qaybihii hadalka waa noun baa kamida pronoun baa kamida verb baa kamida adjective baa kamida adverb baa kamida conjunction baa kamida preposition baa kamida interjection baa kamida insha Allah ta'ala mid baan soo qaadan doonaa hadii Ilaahay idmo ka kooban soo qaadanayna waxa noqon doonaa pronoun waxa weeyaan magacayaal su'aasha dhinacan taale waxa weeyaan what is the pronoun waa maxay pronounku what is the pronounku muxuu yahay pronounku is a short word waa kelmad gaaban that taasi oo replace lagu bedelo the position of the noun halkii uu yaalay magaco
hanku celiyo. What is the pronoun? Waa maxay pronounku? Pronounku is a word, waa kelmad that taasi oo replace loogu bedelanayo the position of the noun, waa halka uu magacu yaalay. Magacu waa magacee? Magacahan dadka caadiga. Magacahan dadka caadiga waay. Yani adigu waxay noqonaysaa magacaanta dadka caadiga waxaa noolay magacaantooda adigu wixii pronounka soo hoos geli doona insha Allah taala waan arki doonaa qaybaha pronounkaas ayaa maxay heedanay lagu bedelanaya meesha magaca uu yaalo. Kinds of pronoun waa inta nooc uu leeyahay pronounku. Toddoba magacyaal baa dhinacan, toddoba pronoun baa dhinacan maxay heedanay inoo yaala. Kow waa maxay? Waa personal pronoun, relative pronoun, intensive pronoun, demonstrative pronoun, identified pronoun, interrogative pronoun iyo relative pronoun. Intaasba insha Allah taala waxaan maxaadina ku dhigan doonaa inagoo hal soo qaadan doona casharadeenna ku xigta. Laakiin casharkeena maanta waxa ku jira ta koowaad oo ah personal pronoun. Personal pronounku waa maxay isna? Personal pronounku waxa weeye is a word, waa kelmad that taasi oo replace iyadoo la dhiganayo the noun, halkii magacu yaalay. Waa isku mid. Pronounkii hore bay isku mid yihiin, yani maadaama ka qabtay pronounka. Personal pronounkuna waa halkii qofka uu yaalo magaciisa la dhigaya. Halkan personal qof badnaa soo galaysa. Okay, list of personal pronounka laba loo kala qaybinaya: subjective pronoun, objective pronoun. Hadda anagu waxaan dhigan doonaa insha Allah taala subjective pronoun, objective pronoun waan dhigan doonaa. List of personal pronounka waxaan kala qaybinaynaa labo, singular iyo plural. Singular waa waxa kaliya, pluralna waa waxa jamaca weey. Markaas I waa aniga waa kali, you waa adiga waa kali, he waa isaga oo waa kali, she waa iyada oo waa kali, it wax aan noolin baa loo isticmaalaa oo kaliya. We waxa weeyaan innaka weey. You idinka. Dayna waa maxay? Waxa weeyaan dayna waxa weeye inaga weey. Day waa maxay macnaheedu? Inaga. Haddaba markaas magacahan dadka haddaad qof sheegaysa adiga aad maxruuf hore soo qaadatay oo aniga aad lahayd my name is Abdiqani Maxamuud Fani, I am live in head, halkaasaan ku noolahay. I am ayda meeshan soo qaadatay marka horena magacaygan sheegay, magacaygan ku bedelay aydi. Marka you ka hadlayo waa adiga oo haddaan ku idhaahdo maanta what's your name? Your name is Ahmed, you are free intelligent. Ad magacaagu waa Ahmed, aad baad xariifad, yani aad baad maskax badan tahay. Markaasoo kale odhan karaa sax. maxaa heedana waxaan u gudbaynaa example kan gudbaynaa. Okay, she is cooking the food. iyadu waxay karinaysaa cuntada, waa kali iyadana la tilmaamaya, magaceeda lama sheegin. halkii magaceeda ayaa she la dhigay markaa la geliyay. horena waxaan ku soo nidhi waa kamid gaaban taasoo lagu badasho meesha magaca qofku yaalo. He waa isaga, he plays football, isagu waxa uu ciyaarayaa kubadda cagta. It waa wax aan nooleen, it is very dangerous, aad bay khatar waxaasi u tahay. They are reading lesson, iyagu waxay akhrinayaan cashirka. Okay, we are building a house, inagu waxaynu dhisaynaa guri baynu dhisaynaa. I am waiting with my brother, anigu waxaan sugayaa aniga. I am waiting with my mother, anigu waxaan sugayaa hooyaday. Okay, you are kicking the ball, you are kicking the ball, adigu waxaad laagaysaa kubadda. waad mahadsantihiin dhammaantiin. cashkeena maanta intaasuu ku eegyahay. waxaan naga codsanaynaa inaad videoga like, share iyo commenti intaba siisaan, sidoo kale aad asxaabtiina u share garaysaan aan doonaya inay luqadda ingiriiska bartaan. aad iyo aad waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.